بسم الله السلام عليكم. magacayga waxa waaye maxamed xuseen ama maxamed cabdullaahi xuseen. company waxaa leeyahay Relsoft Technology Solutions ama Reliable Electronic Software Technology. So basically waxaan qaban waxa waaye from logo design to live website, Relsoft the one stop technology solutions. Small businesses waxay u baahan yihiin meel ay ka heli karaan waxyaabay u baahan yihiin oo dhan. Si qofka marka uusan loogada meel ugu raadsanin, website-ki uusan meel u raadinin, design-ki uusan meel u raadinin, waxaan u sameynay in hal meel oo one stop ay ku heli karaan in maxaan ku raahdaa aan u sameyno. So website-keena oo kaasa 1800 number aan leenahay 24/7 la soo wici karayo and so on. So maxay tahay waxaan qabano waxa way basically graphic design, software development, custom software, IT training, iyo also waxaan sameynaa waxa la yiraahdo customized software and web design. Web design ka mid ah service kan qabano waxa ka mid ah custom software oo from scratch qofka qaabku u rabo intuu oo la imaado from scratch looga waxaynayo from paper iyo pen to implementation and real software. And waxaa kaloo qabanaa graphic design sida logooyinka, brochureska, flyerska, all this stuff. waxaan kaloo waxayna digital marketing oo ah internetka in qofka wax loogu xayeysiiyo. Basically qof kasta website samayn karo wax adiga xitaa personalka oo u samaysan kartaa, laakiin the main point waxa ah in website-kan uu yahay wax reliable at the same time adduunkina u soo bandhigmi karo. oo micnaheedu aan ula jeedno qofka markuu مثلا Google-ka ku qoro business noocaas ee near me something like that uu hore ka heli karo oo top listiga ay soo geli kartid search engine optimization-ka adoo maxaan ku raahdaa la isticmaalayo. IT consultation aan sameynaa kaba soo qaadbo sida uu Cabdulla sheegay program u baahan tahay, system waxa u baahan tahay management qarashaadkaaga ama waxyaabo kale ku qabto ama certain thing ku fix gareeyo si marka taas ayada the best system or suites for your needs aad u heshid yaa waxaan ku sameynaa consultation anagoo isticmaalayna experience-gan. So basically outside wall-ka in maxaan ku raahdaa business-kaaga aan ku xirno your business to the outside wall connection inaan sameyno through maxaan ku raahdaa technology anagoo ka faa'iideysanayno. hadda meeshaan aragtid business branding waaye qofkan loogadiisa, business card-kiisa, email signature-kiisa, flyer-kiisa, banner-kiisa, all of them same unique iyo format ay ku socdaan. taas ayadana waa waxa hadda business-ka uu isku dhaafay oo business branding qofkii inuu leeyahay qofkan business-kiisa markii la arko in from logo to the live website same format, same colors, same wax ismaaj garaynaya ay noqdaan. midna uusan yellow noqonin, mid kalena red uusan noqonin, confusion uusan ka imaanin, business-ki misrepresentation ku keenay. This services-kan qaabka loo helay wixii la mid ah just si quick waxa idin tusi doonaa hal software oo maxaan ku raahdaa aan develop garaynay laguna magacaabo Teams Glancer u taagan tracking industry management system. Glancerna ay tahay milicsi ama loo yaqaan maareeyaha milicsiga. waa software Somali American ah oo English iyo Somali in kula hadli doono sida aad arki doontaan indhow. Welcome to Teams Glancer, your choice one of truck management system. kusoo dhawow Teams Glancer adeega qabtiraha hanaan haynta habqanka gaadiidka. No language left behind meesha ay ugu dalanay Soomaaligana marka luqadii hore ku jira. So programkan track management-iga ah and small businesses-ka yaan u sameynay in ay ku heli karaan management-iga u baahan yihiin. wuxuu markuu sameynay code or summary ku siinaya. Thank you. Owner operators-ka inta active-ka, drivers-ka, unit-yada company ku jirto, inta driver license expire noqotay, inta maxaa ku raahdaa waxa la yiraahdo inspection due iyo wixii la mid ah. halkan financial summary ku siinaya inta load ku soo gashay, dispatch inta ku soo gashay, loaderka la factor gareeyay, lacagta ka soo xarootay, inta load on la factor gareynin, lacagta ku maqan oo rate uu kugu tusinayo, sanadka 2022 intaad samaysay, 2023 oo intaad samaysay halkaan aad ka arki kartid. At the same time meeshaan wuxuu ku siinaya summary-ga loaderka ugu dambeeyay oo aan la factor gareyn iyo wixii la mid ah. haddii aan u baahdo bil gudaheed inaan ogaado macluumaadkii wixii soo galay all I need waxa waaye inaan ka soo bilaabo مثلا November 1 ilaa maanta 11 kadibna aan load record ku dhufto. aad sound si kli garanaysid automatic information ku isbedelay 25,000 ay ahayn loaderka 2,500 ah loaderka la qaaday 250 dispatch ku soo gashay intaas la factor gareeyay wax not factored in ma jiraan. So automatic summary ku siiyay in just click. That's why we call Teams Glancer maareeyaha milicsiga. loaderkii oo dhan inta ka arki kartaa. Sorry khadka hadba isticmaalaya marka xogaa delay halkaas ka imaanaya.
for just 3 seconds more and should be fine, hopefully. Anyway, khadkaan filaya in maxaan ku radaa cilad ay ka jirto, laakiin programka qaabkaas wuxuu kaloo leeyahay meel file management ah oo faylasho dhan aad ku guri kartid oo taad weli u sheegayay meel waxa u baahnaan kartaa resiijyada inay ku diyaarsan yihiin iyo wixii la mid ah. So wuxuu leeyahay file managementiga marka wuxuu ku sameynaya all fileska u baahnayd oo dhan yaa meeshaas kugu jira, company files, owner operators files iyo wixii la mid ah, ama systemyada kale oo caadiga oo customizable loogu samayn karo oo any shirkad ama any qof intuu leh system u baahan aan ugu samayn karno ayadoo resiijyadiisa halkaas ayada uu ku waxaysanaya, kadib markii u baahdana uu si easy ah saas oo kale oo ugu soo ugu dhufanayo meeshii resiidka uga baahnaa ama fileka u baahnaa, kadibna fileka uu u furi doono systemka si automatic loogu furi doono. Wuxuu leeyahay billingkii oo maxaan ku rahdaa uu invoiceki kuusoo sameynayo anytime aad qofka u diri kartid, at the same time email uga dhex dirayo. marka rabo inaan waqti badan aan ka qaato serviceyadaas waa serviceyadan qabano, intaasaan rabo inaan idinla share-gareeyo. So Relsoft waa from logo design to live website. Relsoft, the one stop technology solutions. Thank you so much.